ma sheegi karo goorta uu ogolaan doono waalidkayga jacaylkani. السلام عليكم جايز ولكن ودنا بحرودين له سو دوادا فضلا هدي aad ku subtaa channelkayga subscribe saar hadii aad hore u saartana mahadsanid magacayga wadana baxar halka diga daawanaysidna waa Mojis TV maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qiso kale oo xanuun badan haddaba dhageysi haboon qisadu waxay u dhacaysaa sida tan waxaana ila soo wadaagtay gabar joogto gobolada Soomaaliya gobol kamida waxayna i tiri magacayga ha soo xusin waxaana ka rabaa oo kaliya inaad asxaabtaada la wadaagtid sheekadeeda si ay ii soo siiyaan talo aniga iyo jacaylkayga na qancisa na anfacda. haddaba sheekada ama qisada waxay u dhacday sida tan waxaan isjecelnahay wiil waxaan isla soconaa muddo badan waxaan marwalba ku haminaa inaan ishelno inaan farxad wadaagno wiilkan aad ayaan u jeclahay waxaan isla marnay dib iyo murugo iyo rafaad badan iyo isku diidmo badan ilaa hadda waxaan kala taaganahay laba dhinac labadaas dhinac oo ah familkayga ayaa waxay hayaan caqabad aad u weyn waliba ayko inoo diidayo inaan ishelno ama aan isguursano waxaan marwalba ku dadaalnaa inaynu iskaansiiyaan waalidiinteena balse wax kastoo aan sameeyo waalidkaygu way diideen waalidkiisana way imaadeen inta soo jeer waana la ii diiday in uu iguursado wiilkaasi hadeer waan isla joognaa waqti walbana waxaan isla qaadanaa farxad si dhuudhuumasho ayaan iskula kulannaa mar walbana waxaan ku fikirnaa inaan isla baxsano haddii aan isla baxsanona ducada waalidka ayaa waxay tahay mid aanan laga maarmin waxaan ka baqaynaa inay nagu dhacaan waalidiinta habaarkooda anakoo marba fiirinayna waalidka habaarkiisa raadinayna ducadiisa ayaan hadda waxaan u dhibtoonaynaa jacaylkeena aad ayaan u jeclahay kama maarmo waqti walba waan u sheegaa inaan jeclahay waalidkayga waxay ileeyihiin haddii aad doonayso ducadeena ka har wiilkaasi kamana hari karo waayo xad dhaaf ayaan u jeclahay waqti walba waxaan jeclahay haddii aanan arag inaan cuntada cunin markaan arko oo keliya ayay cunada igu degaysaa anigoo intaas og oo misna aan ilaawi karin habeenkiina anigoonan codkiisa maqlin aan seexo karin haddii aan dhaho iska ilaaw ama ka har ma ka hari karo nafteedana ma inqaabi karo waalidku ma fahmayaan jacaylka aniga i hayo iyo jacaylka wiilka hayo balse marwalba waxaan isku dayaa inaan tuso jacaylka hayo wiilka anigana jacaylka i hayo dheg jalaq inooma siiyaan oo waxay hooshooduba tahay inaan anigu nin kale ay ii raadiyaan waxay leeyihiin ninkaani kuuma qalmo oo mana baahnin anaga inaan wiilkaani mustaqbalkaaga ku aaminno waxaan marwalba jeclahay inaan ka dhaadhiciyo waalidiinta si kastoon wax u fahansiiyana ma fahmayaan wallaahi ma sheegi karo goorta uu ogolaan doono waalidkayga jacaylkani walaal waxaan doonayaa inaad iga siisid talo sideen uga dhaadhiciyaa waalidka jacaylkan u qabo qofkan ama wiilkan aan jeclahay sideen haddana ku hergeliyaa jacaylkayga miyaan la baxsadaa mise waan iska ooyaa waxaan doonayaaba waa taladiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waalidku si wax lagu fahansiiyo ana ma garanayo horta taas ma garanayo waalidku si kastoo wax uga sheegtid hadduu wax kaa kari waayo anisa wax uga sheega ma aqaaniba waalidku hadduuba diidaba sheegitaanka aad u sheegtay abaay aniga ma sheegi karo wallaahi sidaad ugu sheegi lahayd inkastoo tala yar aan ku siinayo horta waalidku wiilku 3 jeer hadduu u yimaado oo ka soo doonto waxaa loo tagaa abtigaaga adeerkaaga oo kale waxaa kaloo loo tagaa habaryartaada oo kale waxaa kaloo loo tagaa qof aabahaaga u qadariyo ma aragtay qiimeeyo oo kale la raadiyaa meelahaas laga soo maraa taasi ayaan aniga sheegay laakiin sida qaab wax loogu sheego qof hadduu adiga ka diiday si wax loogu sheego ma jirto laakiin qof asig uu qadariyo oo gurigiina ku weyn oo gurigiina laga qadariyo ama abtiga ha ahaado ama adeerka ama qof familkiina kamida qasab waa qof buu aabaha qadariyaa oo xishmeeyaa ka baqaa ka xishooda marka waxaan ku dhihi lahaa dhankaas soo mar
waxaan hubaa inaad ka guuleysanaysid wallaahi aad ka guuleysanaysaa si aan anigaba u soo guuleystay halkaas taas ayaan taladeedu kaaga dhigayaa waa talada ugu fiican dabcan la sameyn karo asxaabta ayaan u deenayaa asxaabta waxaan rajaynayaa ayakana inay talada kusii doonaan dabcan talo fiican ay noqoto taladuna waa xaggiina waad ku mahadsantihiin dhegeysateen sheekadan ama qisadan ولكن ودن بحر ودن له السلام عليكم ورحمة الله تعالى